magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo waxaa laga soo warinayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo aanan hore looga arag halkaasi ay ka dejisay kuwaasi oo diyaarado looga qaaday gudaha caasimadda Muqdisho. mucaaradkuna waxa ay abaabul xoogan ka sameynayaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka gadaal markii ay dhowaan ganafka isku dhufteen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xubnaha mucaaradka. soo dhow daawade hadday tahay markaaga kugu horeysay aad soo booqato halkan subscribe noo saar noon like gare muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. warar cusub oo aynu helayno waxa ay ku waramayaan in dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya in gudaha magaalada Balad Xawe ee gobolkaasi Gedo ay ka dejiyeen ciidamo si gaar ah u tababaran kuwaasi oo aan noocooda hore looga arag. waxaana la tilmaamayaa in diyaarad looga qaaday gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana la geeyay gudaha magaalada Balad Xawe ee gobolkaasi Gedo. waxaa la tilmaamayaa in tallaabadan ay timid ka gadaal markii dhinaca iyo Jubbaland gaar ahaan madaxweyne Maxamuud Sayid Aadan uu ka dhawaajiyay inay arbushi doonaan isla markaana ay ka hortagi doonaan dhismaha maamulka cusub ee ay dowladdu ku howlan tahay inay ka yagleesho gudaha gobolkaasi Gedo. waxaana Maxamuud Sayid Aadan uu hoosta ka xariiqay in guud ahaanba la aqbali doonin tallaabo waliba oo markaasi aanan ka tarjumaynin madax banaanida Jubbaland. waxaana uu hoosta ka xariiqay inay qaadi doonaan weeraro abaabulan oo ay ka geysanayaan gudaha gobolkaasi Gedo ka gadaal markii uu la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. wararka kale ee la helayo gobolkaasi ka imanaya waxa ay ku waramayaan in guud ahaanba isu birtumasho xoogan ay gobolka ka jirto. dowladduna waxa ay xoojinaysaa ciidamadeeda halkaasi ku sugan. Garbaharey ayaa la tilmaamayaa in ciidamada qaarkood loo sii daabulayo halkaasi oo laga gudagalayo dhismaha wejiga koobaad ee lagu dhisayo maamulka cusub ee Jubbaland kaasi oo laga yegleelayo gudaha magaalada Garbaharey ee xarunta gobolkaasi Gedo. waxaana la tilmaamayaa in dhammaanba tallaabadaasi ay isku fahmeen guud ahaanba dhinacyada siyaasadeed ee dalka. waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba hadda la gudagalayo dhismaha maamulka cusub ee laga yegleelayo gobolkaasi Gedo. Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaaga wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya iyo wafdi saraakiil ah uu hogaaminayo ayay iluhu tilmaamayaan in dhowaan ay halkaasi tagi doonaan si ay usii gudagalaan isla markaana ay u ambaqaadaan wejiga koobaad ee dhismaha maamulka halkaasi laga yegleelayo. dowladdu waxaa la tilmaamayaa in awoodeedu ay isugu geynayso in la helo maamulka madax banaankan Axmed Madoobe ee Kismaayo ka dhisan. waxaana ay doonaysaa hadda inay ambaqaado guud ahaanba dhismaha maamul cusub kaasi oo fadhigiisa uu noqonayo gudaha magaalada Garbaharey. tallaabadaasi ayaana la tilmaamayaa in si weyn ay uga shaqaynayso dowladda Soomaaliya. waxaa la tilmaamayaa in dowladaha diriska iyo qaar ka mid ah wadamada shisheeye ay si weyn u diidan yihiin dhismaha maamulkan cusub. adduun lacageed oo tirabeela ayaana la tilmaamayaa inay duldhigaan sidii loo baajin lahaa qorshahan. dowladdana waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba dheg aysan jalaq u saynayn isla markaana ay si ambaqaadayso dhismaha maamulkan. waxaana hogaaminaya guud ahaanba wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. waxaana la tilmaamayaa guud ahaanba hadda in la ambaqaaday wejiga koobaad ee dhismahaasi. waxaa la tilmaamayaa in Jubbaland iyaduna dab yaraysan shidayn isla markaana wararka qaar aynu helayno waxa ay tilmaamayaan gudoomiye Maxamed Xuseen Cabdi Lafey oo ah gudoomiyaha degmada Dolow ee gobolkaasi Gedo in ay dowladda Jubbaland ay u aqoonsanayso inuu noqdo wasiirka amniga gudaha maamulkaasi si uu si ambaqaado dagaalka lagu wajahayo maamulka Jubbaland. waxaa la tilmaamayaa in wareegtadiisu xafiiska Axmed Madoobe ay taalo isla markaana dhowaan la shaacin doono sida ay ku waramayaan ilaa dhaxal galayo oo ku sugan gudaha madaxtooyada Jubbaland. wararkan waxaa sidoo kale ay ku waramayaan in xiisadda gobolka Gedo marba markii kasii dambayso ay kasii darayso. waxaana maangala dhinacyadu inay isfoo taaraan haddii aanan la helin garab kale oo isku howla xal u helidda khilaafka ka dhex xoogan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. markana mucaaradka Muqdisho. mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la tilmaamayaa inay wadaan abaabul xoogan oo ka dhana xukuumadda talada joogta ka gadaal markii dhowaan uu fashilmay shir ka dhacay qasriga madaxtooyada dalka looga arrimiyo ee Villa Soomaaliya isla markaana ay ku kala dareereen xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa la tilmaamayaa in mar kale madaxweynuhu isku dayayo inuu kala abaabulo xubnaha mucaaradka isla markaana saddex garab oo islaag uu kala jibiyay. waxaa la tilmaamayaa in Shariif iyo koox yar oo markaasi si weyn uga aragti duwan madaxweynaha jamhuuriyadda in guud ahaanba ay ka dhawaajiyeen inaan la aqbali doonin waxyaabaha ay ku dhaqaaqayso dowladda ee ah in ay hergeliso doorasho aan heshiis lagu ahayn iyo wax ka beddelka cutubiyada dastuurka ee furan ee ay dowladdu furtay. waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba tallaabadaasi ay si weyn u deedan yihiin.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo guud ahaanba dibadgaalka ah xubnaha siyaasiyiinta ee sida weyn muddooyinkii ugu dambeeyay siyaasadaha dalka uu karkarinaya ayaa isaga qudhiisu xoguhu waxa ay tilmaamayaan inuu ku soo jeedo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho si markaasi qayb uga noqdo guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada ka soconaya gudaha caasimadda isla markaana lagu diidan yahay in doorasho aan heshiis lagu ahayn dalka laga hirgeliyo sida ay xukuumadda talada joogta doonaysana ay hirgelinayso doorasho qof iyo cod ah taasi oo guud ahaanba si weyn ay mucaaradku u diidan yihiin iyo wax ka beddelka dastuurka waxaa la tilmaamayaa in qaarkooda ay guud ahaanba ciidamo qoranayaan isla markaana beelahooda ay dib ugu laabteen si markaasi ay isu soo abaabulaan waxa ay ka baqanayaan inay weerar ku qaado xukuumadda talada joogta gaar ahaan galkaasi oo loo egmaday taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad waxaana mar waliba suuragal ah in uu awood ku maquunayo xubnaha mucaaradka oo muddooyinkii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan ay isu hayeen villa Soomaaliya waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi guud ahaanba ay mucaaradku si weyn u diidan yihiin si ay uga hortagaanna ay qaadayaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo markaasi lagu afjigayo tallaabooyinka dowladdu ay ku doonayso inay ciidamo dul dhigto xubnaha mucaaradka ee Muqdisho jooga waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba qaarkood ay hadda isaga baxeen magaalada Muqdisho ayna gaareen dhanka iyo magaalada Nairobi halkaasi oo ay ka sii qaadayaan guud ahaanba mucaaradka ay ku wajahayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya Farmaajo uu ku soo jeeda magaalada Muqdisho ayayna xoguhu tilmaamayaan inuu fariisin ka dhiganayo xerada Meeranayo halkaas oo ay maangal tahay guud ahaanba inuu ka soo abaabulo qorshayaal xoogan oo markaasi mucaarad ku anfacayo isla markaana dowladdu si weyn uga hor iman kara waxaa la tilmaamayaa suurtagalnimada Farmaajo uu ku degayo guud ahaanba Meeranayo ayay dadka isweydiinayaan waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi uu horkacayo gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish kaasi oo isaga mas'uul ka noqonaya qorshaha dejinta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku degayo gudaha Meeranayo halkaasi oo abaabul xoogan uu ka sameynayo halka ila kalena ay ku waramayaan in guud ahaanba uu degayo aaga Elborka halkaasi oo ay tahay halka loo badinayo guud ahaanba inuu fariisin ka dhigan doono si uu abaabulo wajiyo cusub oo mucaarad ah maadaama muddo-xileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gabaabsi ku sii dhow yahay waxaana la tilmaamayaa in mucaaradka intooda ugu badanay hadda ay ku soo laabanayaan gudaha dalka si markaasi loo sii qaado qorshaha lagu doonayo in lagu mucaarado xukuumadda talada joogta oo iyadu markaasi doonaysa doorasho aan heshiis lagu ahayn inay meel mariso sidoo kalena wax ka bedel ay ku samayso dastuurka ku meel gaarka waxaana la tilmaamayaa mucaaradku in tallaabadaasi si weyn ay u diidan yihiin xukuumadda talada joogta ayaana mar waliba suurtagal ah inay qaado tallaabooyin xoogan oo markaasi ay ku maquunaynayso xubnaha mucaaradka lama sooga halka ay saldhigan doonto xiisada ka dhex xaluusan dhinacyada